Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacayga waa Arkadash Hosh Gardens. Soo dhawaada asxaabta ku soo dhawaada channelkayga Malin Teaching and Cooking. Waxaan noo socda cashirkeena buugga koowaad ee Upper Istanbul. Buugga Istanbul la dhaho marka buugga koowaad ah ama A1. Marka dilbilkiisi aan ku jirnay cashirka qaybta grammarka dilbilkiisi qaybta grammarka isim jumla laaran qaadan oo ah jumlooyinka oo magaca isimka ama magaca sida macallin arday waa magac samaha so marka maalin hore waan qaadanay been aniga sen adiga oo ayada ama asaga cashka hore u qaadanay peace anaka ama anaka sis adinka online ayaka so marka waan qaadanay dan waxaan qaadanay ayagoo ilmilo ah jumlo oo positive ah oo been oo retmaani man waxaa macallin olumsus oo diidma ah ama negative ah diidma ah been oo retmaan dayilim aniga macallin ma ihi macallin ahay aniga macallin ma ihi haddana waxaan rabaa inaan dhaho aniga macallin miya ah olumnusuru waa su-aal positive ah oo retmaan miyim aniga macallin miya ahay olumsus haddana olumsusuru su-aal oo negative ah question tag englishka lahaa marka olumsusuru waa negative iyo question isla socda su-aal isla socda soo marka aniga macallin ma ihi miya oo retmaan dayil miyim oo retmaan dayil miyim aniga macallin ma ihi miya so marka waan qaadan cashirkan hore oo soo dhiga cashirka hore waxay markii waxaan soo xasuusinaa been oo aniga ah gadaal muxuu ka qaataa oredmaanim im sen waxaa lagu fahmayaa sen adiga ah sin oredmaan sinta daarto waa sen adiga oo oredmaan oo iskaga soo laabanaya waxaa uma raacan oo isaga ama iyada oo macallin peace oredmaanis nistan maxay sheegaysaa peace sis oredmaan sinistan maxay sheegaysaa sis marka inta maxaa oredmaan sin kana sinis raacda nisa lagu sii daray onlar oredmaan laartasaa lagu fahmaa marka hore usoo qadan cashirkaas maanta wax cashirka noogu bilaabanaya orneg ama tusaale mazaal orneg so ornegan waxaan ka bilaabaynaa sidee tahay adiga nasil sin sidee tahay iyim waan fiicanahay sen adiga bugun maanta yurgun musun sen bugun yurgun musun sen adiga bugun maanta yurgun musun maanta ma daalan tahay yurgun waa daal bugunna waa maanta so sen adiga bugun maanta yurgun musun ma daalan tahay adiga maanta ma daalan tahay hayir maya yurgun dayilim haddii kale waxaa dhihi kartaa ebed haa yurgunum inta bisa u iyo ma ku daraysaa yurgunum because adaa iska hadlayso so hayir maya yurgun dayil moodha aniga ma daalani marka ach misin ma baahan tahay ach waa baahi ach misinis ma baahan tahay ama ma baahan tihiin ach misinis ma baahan tihiin qofka xushmaynaysana waa loo adeegsadaa ach misinis aaleysa qofka xushmaynaysa booskaaga qofka meesha shaqada kaa sarreeya qof xushma dhakhtarka waxyaabahaas oo kaleeto misinisa loo adeegsadaa marka ach misinis adinka ma baahan tihiin ebed haa chok ajis aadan u baahanaa chok waa aad chok ajis aadan u baahannahay naradaysinid xaggee joogtiin where you xaggee joogtiin naradaysinis istanbul dayis waxaan joognaa istanbul dayis onlar ayaga eflim ayaga maxaaslayaala ama maxaasasa labadaba loo adeegsadaa micnaha efli ereyga ah waa qof ama xaas ah ama xaasla ah so onlar ayaga eflimi xaaslayaal miya ayaga xaas miya labadaba loo adeegsan karaa adiga nin iyo naag waa loo adeegsadaa ebed haa onlar ayaga efli waa xaaslayaal onlar ayaga efli laarna waa la dhihi karaa laakiin maadaama onlar inta ka qaadana efli na waa dhihi karta labadaba loo isticmaali kara hore usoo qaadana waa kana onlar oretmaan iyo oretmaan laarba waa sax marka onlar ayaga eflimi ayaga maxaaslayaal ama maxaasasba ebed haa onlar efli waa xaaslayaal ama waa xaasas san adiga ingiliis dayil misin adiga ingiriis ma tiidmiya ingiliiska saan oo qoran ayaga ingiliis san adiga ingiliis dayil misin adiga ingiriis ma tiidmiya san adiga soomaali dayil misin soomaali ayaa ku bedeli kartaa meeshaan soomaali dayil misin america dayil misin kenya dayil misin ethiopia dayil misin wadanka bisa inta gelinaysaa so san adiga ingiliis dayil misin adiga ingiriis ma tiidmiya ingiriiska ama england ama uk inaa wadanka ingiriiska anaga ingiriis aa dhahnaa ebed haa ingiliis dayilim ebed haa ingiliis dayilim aniga ma ihi ingiriis rusum waxaan ahay ruush soomaaliyim waa dhihi kartaa waxaan ahay soomaali rusum waxaan ahay ruus marka su-aalahan aan ka jawaabaynaa
ashadagi boshlukular meelahan babanaan oo hoose orneglardaki gebi sidii ornegyadan ama tusaalaha hore usoo qaadanay oo kale dolduralim aan u buuxbuuxin doldurum waan buuxbuuxin marka waa number 1 ilaa 15 ama 15 1 up to 15 marka intaas ka shaqeynaa insha Allah marka waxaan sameynayaa maxaa la dhahay waxaan qorayaa kaliya maadaama ay su-aasha dheer tahay waxaan jumlada ama wada qoraayo kaliya meeshaan dhashtaan bis xarafkaana qaadanaa mid kasta xarafka u dambeeya bis aan soo buuxina insha Allah marka lambarka koowaad ama suura bir su-aasha koowaad onlar ayaga Istanbul Universitesi'nde öğrenci ayaga waa arday jaamacadda Istanbul waa ardayda jaamacadda Istanbul university sidaan u qora ayaga university udan Universitesi'nde marka jaamacadda ayaga waa jaamacadda waa ardayda jaamacadda Istanbul marka meesha maxaa ka raacaysa onlar maxaa la adeegsadaa onlar öğretmenler marka onlar maxay noqonaysaa öğrenciler marka öğrenciler aan qorayna waa kana marka öğrenciler waxaan soo qaatay kaliya ardaygii onlar öğrenciler haddana waxaa imaaneynaa su-aasha labaad ama suura 2 ben aniga evde değilim ben aniga evde değilim aniga guriga ma joogo ben aniga evde değilim guriga ma joogo aniga şimdi hadda işte waa shaqo işte waxaan rabaa inaan shaqadan joogo ishteyim marka maadaama oo ben intasaan qaadanaysay ben öğretmenim imtan waxay sheegaysaa ben im so imtan waa ben so marka maadaama inta ishte ay tahay oo ay taala shaqal u yaala shaqal kale kuma dari kara laba shaqal isma raacan so marka waxaan sameynayaa maadaama ay tan ismta ama magac ya aan u dhex marina ishteyim aan lahay ya aan ku daraaya kadib aan im kusii daraaya adoo fiirinaysa xarafka markasta ka horeeya hadduu yahay oo kalin iyo wax la dhaho injal isticmaala hore usoo qaadana cashradaas oo xarfaha aa fiirinaysid haddii inta ama ay tahay kala qaadanina im haddii inta ay oo ahaan lahayd aan qaadan ay noqon lahayd marka anagoo taas fiirinayna kalin iyo inja wax la dhahaa shaqalada wax soo kala qaadanay shaqalada oo nuqdada leh iyo kuwa nuqdada lahayn waxay qaataan hore usoo qaadana cashirkaas oo haddaa fahmi weysa cashirka hore insha Allah marka hadda waa kana marka istayim ben şimdi ben muxuu ahaa evde değilim istayim şimdi hadda istayim waxaan joogaa shaqada marka iste ya-daan ku daraysaa im aa ku daraysaa hadda marka intaana ku dara aniga intaas ku daray so su-aasha saddexaad aan u tegaynaa ayadana marka anaga marka inta maxay onlar ayaga ben aniga hadda waxaa imaanaynaa peace anaka waa su-aasha saddexaad bugün maanta çok yorgun aadaan u daalanahay maanta aadaan u daalanahay marka peace waxay qaadanaysaa las kalaba peace dii aadan xifdisanin hadhow ku wareeraysaa peace muxuu ahaa öğretmenis iyadoo ah marka inta maadaama ay nis ahayd oo xarafka oo u dambeeyo inta peace maadaama na u dambeyso kaliya waxaan ku daraynaa yorgunus aan dhehna bis sababtoo intii kale waana la siiyey marka yorgunus aan dhehna kaliya sad aan ku daraynaa meeshaan so marka peace bugun yorgunus intaas bisaa ku daraysaa yorgun bisay ahayd intaana ahayd marka maxaa ku dara maadaama na u dambeyso ya iyo waxba laygama rabo intaas bisaan ku daray yorgunus aadaan u daalanahay maanta waan daalanahay maanta waan daalanahay marka su-aasha saddexaad bis anaga bugun maanta çok yorgunus aadaan u daalanahay yorgun bisay ahayd marka waxaan arka rabaa inaan ku darno yorgunus wixii bis muujinayo so marka waxaan tegaynaa su-aasha afaraad ama suuro dood sen adiga başarılı bir öğretmen sen adiga başarılı bir öğretmen waxaa tahay qof oo macalin guuleystay başarılı waa guul sen adiga başarılı bir öğretmen waxaa tahay macalinka guuleystay marka macalinka guuleystay
maxaa markaan ku daraynaa san maxay qaadanaysaa san meeshaan la iska rabaa san maxay qaadanaysaa sin öğretmen sin marka waa inaa san iyo peace iyo ben ay ku kala saaran yihiin so marka meeshaan maxay noqonaysaa san başarılı bir öğretmensin öğretmensin aan dhahnaa öğretmensin marka öğretmen öğretmensin 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 waxaa taa adiga macalinka guulaysta öğretmensin sintaana laga rabaa bis keliya sen inaad asi ku fahmaynaa sin aan ku dareynaa peace yorgunus aan ku darnay ben ishtayim aniga shaqadan joogaa öğrenciler ayaka laaray noqotay marka waxaan ka rabaa wixii gadaal ka raacaya markasta insha allah waxaan malaynaa inaa ila socotiin ay fahantiin insha allah waxaa fahmaysiin hoosii kusoo qora marka san başarılı bir öğretmensin adiga waxaa tahay macalin guulaystay macalinka keliya ee guulaystay bir öğretmensin başarılı waa guul ama success san başarılı bir öğretmensin waxaa tahay macalinka keliya ee guulaystay sen adiga bütün gün maanta dhan san adiga bütün waa all bütün gunna waa maalin so sen maanta bütün gün maanta dhan okulda iskuulkaad joogtay marka okulda marka maxaa laga rabaa calaama su-aalna hore usoo qaadan markay su-aasha ahayd su-aasha waa tanaa markay ahayd ulumna suuro markay ahayd maxaan dhahay oo sen ahayd öğretmen misin tananaa kaga baahaya marka misin adoo fiirinaysid xarafkan shaqalka ugu dambeeya ereygan ama ismka isticmaala shaqalka ugu dambeeya adoo fiirinaysid halkaa ka tixraacaysa marka sen bütün gün okulda misin anaa karaa meesha adiga maanta dhan ma iskuulkaad joogtay marka waa inaan qornaa su-aal misin intaas bis anaa kaga baahaya keyboardka dhanaa bedela markasta meesha calaam su-aalka ii goynaysaa misin marka misin maxaa u dhaha oo iidan dhibic la-aanta aan u isticmaalay sababta u isticmaalay waxay tahay markasta kusoo celiyaa si markasta u fahantiin insha allah ila socotiin marka san bütün gün okulda misin iskuulka miyaa joogtaa okulda maxaa u dambeeya wax fiirinaysaa shaqalka ugu dambeysa aane waa maxaa la dhahaa kalin waxaa la dhahaa shaqalada aan dhibcaha lahayn nuqdada lahayn shaqalada aan dhibcaha lahayn oo a iyo o iyo u iyo ida aan dhibicda lahayn intaas waxay qaataan markay su-aal imaato misidan oo dhibicda lama qaataan midda aan dhibic la-aanta hatan maxay qaatay midda dhibicda la öğretmen misin sababta u qaatay ida dhibicdalana waxay tahay intaana meeshaana maxay tahay öğretmen eedan meesha ku aragtay waa dhibic iyo kuwa shaqalka leh oo uda ah waxay qaataan misin marka saas darteeda tan waxay u qaadatay mizina lagu dhawaaqaya hubinaa la socotiin fahanteen waxaa imaaneynaa suru alta ama su-aasha lixaad sence adiga bu ish shaqadan ish waa shaqo bu kan waa dis bu ish shaqadan tehliklimi micnaha shaqadan ma shaqo oo ah oo qataraha shaqadan ma shaqo qataraha maxaa u malaynaysaa ma shaqo qatara u malaynaysaa micnaha tehlikli maxaa la dhahaa dangerous ama wax oo risk ah oo qatar ah tehlikli marka sanja adiga bu ish tehlikli me shaqadan ma shaqo oo halis ahaa shaqadan ma shaqo halis ahaa maxaa u malaynaysaa ma shaqo halis ahaa hadii kartaa marka maadaama oo shaqadii laga hadlaayo maxaan dhahaynaa tahliiklime sanje adiga sanje minaha waa adiga maxaa u malaynaysaa sanje adiga fikirkaada sanje buu ish tahliikli mi buu ish shaqadan tahliikli mi aan ku darayna mi sababta ugu darayna waxay tahay maxaa u dambaysa shaqalka iyaa u dambaysa iidaana mi ay qaadataa soo su-aasheena lixaad tahliikli mi tahliikli mi
tahliik limi hubina ila socotiin kor oo qaadan in adii shaqadan shaqami waxa u maleynaysaa oo ah qatar ah seenja adiga buu ish shaqadan tahliik limi shaqami waxa u maleynaysaa oo tahliik le ama tahliik li misinisna ay kartaa tahliik limi shaqo oo qatar mi u maleysaa ama halis ah dan waxa imaanayna suuro yadii ama su'aasha 6 in peace anaga football maxaa la qofka ciyaartooyda oo football laaska ciyaartooyda football waxaa ciyaartii football na waa qofkii hada juuda arag marka football marka peace maadaama ahayn waxaa isticmaalaynay and peace anaga nis isticmaalayn nis maadaama lagu daray meesha uu aataalo uu meesha ku hartiin maxaan dhahay ya isticmaalaysa ya u dhaxmaraysa kadib waxay qaadanaysaa al qoraaya marka hadda waan qoraynaa football sidaan ahayd marka waxaan rabaa football juice inaan dhaho marka maadaama aan shaqal kale isticmaali karin waa inaan ya geliyaa kadib use aan geliyaa use maxaa uudaa u geliyay intaa u ah meesha iyadoo u ah macnaha iimi isticmaali kari soo wixii meeshaan haddii meeshaan oodaan ay ahaan lahayd xitaa uudaana markasta isticmaala wixii uu ama oo ah uudaana la isticmaala marka football juice aan leeyahay football juice belinkana saxa u maleynaaya and peace anaga football juice waxaan ahnay ciyaartooy football juice waxaan ahnay football juice waxaan ahnay ciyaartooy waxaa imaanaynaa suuro 6 su'aasha 8aad Daria waa gabar magaceeda Daria Faya Zainab iyo Zainab Sayf waa caato Sayf waxaa la qof caata ah Sayf waa caato online ayaga shishmaanna maxaa la dhahaa qof buuran Sayf iyo shishmaan waxay isku yihiin opposite caato buuran soo Sayf Daria Faya Zainab Sayf labadooda waa caato Daria iyo Zainab waa caato maadaama loo qof ay maxaa dhahnaa ayaga online ayaga shishmaan macnaha maadaama caata ay yihiin ma ahan dad cayilan soo maaha aanan dhahayna soo online shishmaan dayilar aan arkaa ayaga ma ahan dad cayilan soo Daria Faya Zainab Sayf labadooda Daria iyo Zainab waa caato online ayaga shishmaan dayilar ma aha dad waa cayilan shishmaan waa cayil soo opposite soo marka waxaan qoraynaa dayilar inay soo ku fahanay laba qof kadibna online meesha taalo soo maxaan dhahnaa dayil bisay ahayd soo laartaana ku daray si aan u fahanay inay online tahay oo bina ila socotiin laartaasaan ku daray online shishmaan dayilar ayaga ma aha dad cayilan shishmaan maxaa la dhahaa cayil qof buuran haddana waxaa imaanaynaa su-aasha 9aad maxay tahay evemis waa gurigeena evemis marka maxaa mistan inaad tasay ku fahanay mis taana ku fahanay sadtaana ku fahanay si ama zaada ku fahanay marka evemis gurigeena ukula iskuulka ma ka fog waxaan rabaa inaan gurigeena iskuulka ma fogo evemis ukula usaak waa fogaan dayil aan rabaa marka gurigeena kama fogo iskuulka maadaama guri aan ka hadlayno dayilisna ka rabaa anaga iskama hadlayno anaga gurigeena aan dhahay iskuulka kama fogo gurigeena waxaan ka hadlayaa guri marka waxaan dhahayaa evemis ukula usaak iskuulka usaak dayil kama fogo marka maxaa laga rabaa inaan qorno dayil laar ma dhahayno because laar ma isticmaalayno soo dayil marka evemis ukula usaak ukula usaak dayil gurigeena kama fogo iskuulka kama foga suuro on ama su-aasha 10aad waa adinka burada yabaanji maxaa la dhahaa burada waa halkan yabaanjina waxaa la dhahaa qofka foreignaga ama qofka ajanabiga ah adinka halkan waxaa ku tihiin ajanabi marka adinka burada yabaanji waxaa ku tihiin dad ajanabi marka gadaala maxaa laga rabaa maadaama aan isticmaalayno wixii lagu daraa maxay sinis ayaad soma maxay qaadanaysay sinis marka intaana laga rabaa in lagu darno sinis sidee ugu dareynaa marka
waxaan ugu daraynaa maadaama inta yabaanji ay tahay ji meesha waxaan dhahay shaqal u daba marana waa inaan ya u dhex marinaa shaqalka laguma dari karno soo yabaanji ama yabaanjiha marka waa saasaa loogu dhex marinaa marka maadaama ay tahay ayaga ay san ka bilaabanayso ya uma baahan maadaama ayaga sinis ay tahay sinis oo san ka bilaabanayso marka laakiin haddii aan sida aan peace iyo anaga iyo ben ay ahaan lahayd oo im iyo is u ahaan lahayd laba shaqa isma raacsiinay marka meeshan ya uma dhex marinayn waxaan dhahaynaa hubina la socotiin yabaanji sinis waa sidaas yabaanji sidaas loo qoraa yabaanji ahayd sinis bisaan ku daray sinis maxay sheegaysaa peace intaan bisaan ku daray oo sa'da kasoo bilaabato ama esta ka bilaabato intaas aan ku daray marka waxay noqonaysaa yabaanji sinis adinka halkan waxaa ku tihiin ajnabi marka siis burada yabaanji siis adinka burada halkan yabaanji sinis waxaa ku tihiin ajnabi ama foreigner ku tihiin inaa uqdad u dhashta ma tihiin suuro onbir ama su-aasha 11aad ali qof ninka cali la dhaho nichin sabab nichin why nichin sabab nadan ama nichin ama niye waxsida maxaa la dhahaa why waa sabab taksimda ali nichin taksimda ali muxuu u joogaa taksimda meesha la dhahay taksimda waa meel kamid ah waa meel magaceeda oo bahalkii oo istanbul kamid ah I think xaafad istanbul kamid inay tahay degmo ama xaafad marka ali ninka cali la dhaho nichin sabab taksimda oo u joogaa taksimda unun asaga on oo ay awal ahayd marka unun okulu marka meesha waxaa isticmaalan lahaansho marka unun okulu iskuulkiisa bayasita meesha la dhahayo oo ku yaala marka waxaan rabaa soo iskuulkiisa bayasita kuma yaala inaan dhaho iskuulkiisa soo bayasita kuma yaalo marka meesha waxaan ku darayaa bayasita me aan isticmaala maadaama aan hadda aan adiga iyo aniga iyo anaka aan isticmaalin oo asaga isticmaalin asaga muxuu qaataa hore usoo qaadana oo oredman meesha oredman sidii kusoo laabanaysay oo oredman dayil macalin ma aha sidii kusoo laabanaysay oo oredman me markay su-aalta waa sidaan oredman me misin sidaa ma dhihi karno miyin ma dhihi karno miis ma dhihi karno misinis ma dhihi karno marka waa me u qaataa sidaa darteed meesha waxaan ka rabaa me'dana midii dhibicda lahayd ma aha sababtoo halkan waxaa taala adana gruupka nuqdada ama kalinta gruupka kalin la dhahay ku jirta oo nuqda la-aanta ah marka unun okulu asaga iskuulkiisa biyasita me ama biyasita meesha la dhahaa ayuu ku yaalaa biyasita me marka waxaan ka rabaa me keliya markasta meesha waa walalinaya marka me ay noqonaysaa me'dan waa me'da oo dhibic la-aanta ah sababtay u tahana meeshan groupkan waxay ku jiraan groupka oo la dhaho kalin oo a u dambeyso marka biyasita me asaga iskuulkiisa biyasita soo kuma yaalo muxuu u joogaa taksim marka ali nijin taksimde onun okulu biyasita me suru onbir on iki su-aasha 12aad kardeshim walaalkayga ama walaashayda kardeshim waa qofka walaalkaaga ah oo kaayar weli baa loo adeegsadaa kardeshim walaalkayga ama walaashayda bugun maanta evde unu aramayin marka maxaashan waxaa ka fahmi karnaa unu aramayin hawicin unu asaga aramayin hawicin marka maxaa ka fahmaynaa kardeshin bugun maanta evde dayil maanta walaalkayga ama walaashayda ma joogto guriga fadlan marka hawicin unun aramayinka waxaa ka fahmaynaa guriga ma joogto marka kardeshin walaalkayga ama walaashayda bugun maanta evde dayil unu aramayin marka dayil bisan halka raba meeshan dayishaasaan aan karaa marka maanta guriga ma joogo evde dayil marka kardeshin bugun evde dayil unu aramayin walaalkayga maanta guriga ma joogo ama walaashayda kardesh qofka kaayara la isticmaala walaalkaaga walaashaada kaayar kardesh kis kardesh daraad walaashayda iga yar
erkek kardeşin waa walaalkaaga marka maadaama la kala saaran kardeş waa qof walaalkaaga marka kardeşin bugün evde değil onu aramayın ha wicin aramayın waa diidmo onu ayada aramayın ha wicin sen adiga su-aasha wax tegeynaa on uj ama 13 on uj sen adiga psychologic misin psychologic musun aan rabaa inaan dhaho psychologic meesha marka anaga gelinayna sorry oo ku dhawaaqaya marka psychologic waa taqaanaa psychologiga waa qofka wax barta marka psycholog ayaga hadda ugu dhawaaqaan psychologiga laakiin englishka ah qofka dadka oo stresska iyo waxyaabahaas ku dhacaan dadka bartaan aa la dhahaa psychologist marka psychologic waa barashadii oo maadadii psychologic ahayd marka maxay ugu dhawaaqaan psycholog marka maxaa rabaa sen adiga psycholog marka waxaan ku daraya su-aal sen maxay qaadanaysa marka sen misinay qaadanaysay misin maadaama marka inta misin maxaa u dhahaa oo iida ah inta ay ahayd noqdada maadaama inta ay tahay oo maxay qaadata qun marka maxaan dhahaya psycholog musun oo ku daraya marka hubina ila socotiin ay fahmaysiin waxaa ka wado xarfaha hore usoo qaadana qaarkooda musun sorry dabka bay kasii dheeraba psycholog musun adiga ma waxaa tahay qof psychologiga ah san psycholog musun qof psychology ah miyaa tahay musuntana waxaan u dhahay intaa oo ah so waan dhammayna gobsiina insha allah waxaan tegaynaa su-aasha ondood ama 14 siis adinka heer gun maalin kasta heer waa every time heer gun maalin kasta kutubane da misin maxaa rabaa kutubane maxaa la dhahaa library wax lagu akhristo so libraryga kutubhanede loogu dhawaaqa kutubhanede waa kutubanaha ama library wax lagu akhristo siis adinka heer gun maalin kasta kutubane misnis maalin kastama waxaa joogtiin kutubanaha ama libraryga miyaa joogtiin marka misnis aan dhahayo misnis saas oo qoranta misnis maadaama siis aan ka hadlayna siis misnisna waxuu dhahay inta eed hore usoo qaadana inja ay ku jirtaa marka saa darteed ay qaadanaya misnis siisna misin ma qaataa misnis ay qaadataa sida inta ugu soo aragnay oredman sinis aawayda su-aal ah waa kana oredman misinis soo saas darteeda misinis u dhahay on page su-aasha suura on page ama su-aasha 15 sanja adiga peace anaka basharle miis anaga ma guuleysanaynaa basharle miis anaga ma guuleysanay sanje adiga sanje what do you think maxaa u malaynaysaa adiga ahaantaa marka saan adiga ahayd jeeda hadda lagu daro adiga ahaan maxaa u malaynaysaa so sanje adiga peace anaka basharle miis anaga ma guuleysanaynaa basharle miis marka maadaama peace ahayd miis ay noqonaysaa basharle miis maxaa iida dhibicda lahayn aan u isticmaalo oo loogu dhawaaqo sababta u isticmaalo waxay tahay maadaama inta basharle waa iida dhibic la-aanta si darteed miis isticmaal sanja adiga peace anaka basharle miis anaga ma guuleysanaynaa miyaa umalaynaysaa maxaa adiga kula taa fikirkaada ma guuleysanaynaa marka hope inaa fahanteen intaa yarta inaan ku daraan rabaa insha allah si hadduu cashar cusub aan u bilaabano inta waa kasoo jawaabnay waa kuwaanaa su-aalihii waa kasoo jawaabnay su-aashan ma ugu jirto ilaa 15 su-aalood ahayn waa kasoo jawaabnay marka maxaan qoraa xarfii bis iyo inta lagu daraayay maadaama ay dheertaa jumladda ma aanan wada qorin I hope inay la socotiin marka waxaan ku daraynaa qaybta yarta idinkana atraagreeya marka ashadagi surulare su-aalahan hoos ku qoran jawaab layaalim aan ka jawaabno marka su-aalahan waa su-aal iska caadi ah qofkaas asaa ka jawaabi kara maskaxiisa marka san nara listeners adiga intee u dhalata wadankee kasoo jeedaa san nara listeners adiga wadankee kasoo jeedaa san nara listeners marka waa bobsina insha allah page cusbana u qoraya soo u wareerin san nara listen hadaa lagu adiga wadankeed kasoo jeedaa nara listen maxaa dhahaa Somaliland su-aasha koowaad aan qoro
waxaad dhihi kartaa ben somaliliyim ben somaliliyim. marka somaliliyim sidaas u qorantaa, hubin ay la socotiin. somali intaan bis ahayd, liyim aa ku daraysaa dhalashadaada, somaliliyim. ben somaliliyim maxaa lagu dhahaa sen nerelisinus, adiga wadankeedu dhalatay. ben aa ka bilaabaysa, aniga somaliliyim waxaan u dhashay soomaali. maxaa lagu dhahay iflimisin, qof xaasa miyaa tahay mise qof xaasla ah. haddii rabto waxaad dhihi kartaa qof xaasla ah miyaa tahay ama qof xaas ah, intaba waxaa dhahaysaa ben evlim waxaan ahay xaas. ama waxaad dhihi kartaa ben evli dayilim, aniga ma ihi qof xaas ah ama qof xaasla ah. evli dayilim, hope inaa fahmaysiin waxaan ka wado. marka haddii lagu dhaho ben evlim aa dhahda san evlimisin, adiga ma qof xaasaa tahay mise qof xaasla ah. ben evlim, sorry meeshan waxaa ka tagay ebed aa dhihi kartaa, ilaa su-aalaa lagu weydiiyey ebed. boobsiiskii dax boobsiisadaan wax u hilmaamay, sorry waxaas dhaha saacadda ee dheeraane, dadka sidaas ugu caajisan cashirka dheer, dadka saacad dheer ma jeclaa. soo maxaa dhigaysaa ebed evlim aa dhihi kartaa, ebed ben evlim aa dhihi kartaa. intana maxaa dhihi kartaa hayr evli dayilim, hayr evli ben evli dayilim. hadaarta beenta waa kasii kartaa, hadaarta waa qaadan kartaa. hayr evli dayilim, hayr evli dayilim, aniga miya qof xaas ah ama qof oo xaasle ah. marka evlimisin ebed evlim aa dhahaysaa hayr evli dayilim. marka su-aasha suura uj ama su-aasha saddexaad maxaa la dhahay siis adinka turkeeda misins, siis adinka turkeeda misins, turki maad joogtaan adinka. siis turkeeda misins, adinka turki maad joogtiin. hayr aa dhihi karta turkeeda dayilis, hayr turkeeda dayilis, ana turki ma joogno. ebed turkeeda dayisna waa dhihi kartaa. soo marka waxaan dhahayaa ebed turkeeda dayis, turkiye marka meeshan turkiye ebed turkiye dayis ebed turkiye dayis. maxaa noqdada u dhex mariyay, sababta u dhex mariyay waxay tahay waa ism magacan, maadaama wadan magaciisa ay tahay turkiya, wadanka la dhahay turkiya. soo ebed turkiye dayis. sidoo kale waxaa dhihi kartaa hayr Türkiye'de değiliz. Türkiye'de değiliz ma dhihi kartaa. Evet Türkiye'deyiz. Ha waxaan joognaa Turki. Hayır maya Türkiye'de değiliz, ma joogno Turki. inta waa dhihi kartaa. I hope inaa ila socotiin. waa kana Turkiye'de micnaha maadaama ay tahay ism turki, waxaa dhex marinaysaa calaamada apostrofta. marka lambarka afraad suuradood yorgun musun ma daalan tahay, yorgun musun ebed yorgun maa dhahaysaa, hayr yorgun dayilim, inta waa dhihi kartaa. soo marka yorgun musun markaa waxaa dhahaysaa ebed yorgunum, ebed yorgunum. sidoo kale waxaa dhihi kartaa hayr, marka labada su-aal ba ay noqonaysa u fahantiin. yorgun dayilim, marka maxaa dhahay yorgun musun aluna ebed yorgunum waan daalanahay, ebed haa yorgunum waan daalanahay, hayr maya yorgun dayilim. marka emti halkaan ay aada hadda aa ku wareerinay yorgunum inta aa raacaysa yorgunum, hayr yorgun sida kusoo celi dayilim emti halkaan ay raacay. marka
soo marka labadu waa ku jawaabi kartaa si labadaba aa u fahantiin darteeda aa u qoray ilaa higher bis haddaan qoran higher kuma jawaabaysa weliga. Su-aasha shanaad ama suuri bees darsidan sonra darsidan micnaha waa darsi waxa la dhahaa cashirka ama iskuulka cashirka ka qaadata soo darsidan xiisadaada ama darsigaaga soo darsidan sonra darsigaada kadib cashiradaada kadib bosh musun fasax ma leedahay firaaqa ma leedahay bosh hadaa lagu dhahaa waa empty bosh musun firaaqa ma leedahay marka waxaa dhahaysaa evet darsidan sonra boshum haa firaaqaan leedahay darsiga kadib hayır darsidan sonra bosh değilim inta waa dhigi kartaa marka labada waa qoraa insha allah. Waxaan dhahayaa evet dersinden sonra boş dersinden sonra boşum dersiga kadib fursadaan leeyahay evet dersidan sonra boşum dersiga kadib fursadaan leeyahay. Waxaan dhahaa haddana hayır maya dersidan sonra boş değilim macnaha fursad ma lihid boş değilim. hubinaa fahantay labadaba marka evet dersidan sonra boşum darsiga kadib waxaan ahay firaaqo hayır maya dersidan sonra boş değilim darsiga kadib jaanis ma lihi labadaba ku jawaabi karta marka adiga kaa filantaa macnaa inaa jaanis lehed inaa jaanis lahayn. Suura 6 ama su-aasha 6 bu akşam cawadan ama habeenka aksham waxay u yaqaanaan evening ama xiliga adiga 11 saac ilaa 2 saac oo habeenimo inta laga gaarayo maqribadii ayaa maxay dhahaan aksham soo bu aksham maqribkan naradaysinis xagee jirtay naradaysinis xagee jirtay bu aksham naradaysinis habeenkan xagee jirtaa ama xagee joogtaa marka maxaa dhahaysaa bu aksham waxaa ku jawaabaysaa marka bu akşam meesha joogta sheegaysaa bu akşam maqribkan ama habeenkan evdayim aa dhahaysaa gurigaan jooga evdayim gurigaan jooga bu akşam evdayim waxaan joogaa guriga bu akşam evdayim waxaan joogaa guriga bu akşam naradaysin aan dhaha xagee joogtaa cawadan maqribkan xagee joogtaa ama xagee aadaysaa ama xagee aa dhihi kartaa marka bu akşam cawada ama maqribkan naradaysin xagee joogtaa bu akşam evdayim gurigaan joogaa habeenkan. Jalishkan misin qof oo dadaal badan miyaa tahay jalishkan waxaa la dhahaa qofka hard workaga ama dadaala jalishkan misin waa suuru yadi ama su-aasha 7 jalishkan misin adiga ma tahay qof hard work ama qof dadaala ma tahay waxaa dhahaysaa evet jalishkanim hayır jalishkan değilim evet jalishkanim waxaa qof hard workera hayır jalishkan değilimna waa dhihi kartaa marka maxaan dhahayaa evet jalishkanim maxaan dhahayaa hayır jalishkan değilim evet jalishkanim waxaan ahay qof dadaal badan hayır maya jalishkan değilim ma ihi qof dadaala waxaan ahay tembel jalishkan değilim ma ihi qof dadaala ama tembelna waa dhigi kartaa tembel waxaa la dhahaa qofka aan jalishkan ka ahayn oo aan dadaalin. Suura 6 ama su-aasha 6 aad misin ma baahan tahay açım evet açım waan baahanahay hayır aç değilim waa dhigi kartaa marka hadda baahan tahay haddii kale adiga baa sheegayso marka maxaan dhahayaa evet açım hayır aç değilim ma baahnin waa dhigi kartaa waa baahanan waa dhigi kartaa aç değilim.
and then su-aasha tobnaad kaj yashindasin kaj yashindasin meeqa sanaa jirtaa kaj yashindasin meeqa sanaa jirtaa intaa sanaa sheegaysaa haddaad tacri kartaa been aniga 20 yaşındayım ya yaşındayım 20 yaşındayım waxaa dhahaysaa 20 yaşındayım waxaan jiraa 20 sano sorry 20 yaşındayım 20 sano oo bogsiinaya beerka damir labadaba kuma jiro marka suuro on ama su-aasha tobnaad hasta misin ma xanuunsan tahay hasta xanuun waaye hasta misin ma xanuunsan tahay waxaa dhihi karaa evet hastayım hastayım evet hastayım waxaa kaloo dhihi karaa hayır hasta değilim hayır hasta değilim sorry wuu naga dami rabay marka jaajaraa geli wuu istami halaa yarkaa saasaan maqnaa marka hayır hasta değilim marka su-aasha ugu dambeysa maxay hasta misin evet hastayım hayır hasta değilim ma ihi qof xanuunsan marka hubina ay fahanteen cashirkeena intaasuu ku eegyaa maanta insha allah su-aasha tobnaad ugu dambeysay waxaan rabaa kasoo shaqeyna fadlan isku taraagaray qof kasta ha taraagaray kadib ha ka jawaabo fadlan buuggan haddaa u baahan tihiin hoos gmailkiina meel aan kugu diro ayuu kusoo reeba pdf-kiisa isagoo jalismi kitaab iyo darsi kitaab labada waa haya soo ka shaqeysa iyo qayb ka shaqeys la-aan ah oo micnaa cashir ah qofka u baahan inuu iibsado amazon iibso ka iibsan kara amazon shirkada amazon lagu gadaa qofka pdf-ka rabo soo baxsanayaan anaa usoo dira insha allah waa ku mahadsantiin daawashadiina fadlan haddaan lagu cusubtaa subscribe like comment haddaana la joogtay hoos commentiga lagu reeb insha allah wixii talay tusaale iyo su-aal ah waa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu